ninkani waxa uu wajahayaa halis ka mid ah halisaha ugu khatarta badan ee uu ruux bani'aadam ahi ku waayi karo naftiisa. Waxa uu wajahayaa libaax isagoo aan wadan haba yaraatee wax uu isku difaaco, isagoo og wax kasta oo libaax laga filan karo. Libaaxan ayuu ninkani caawiyay xilli uu u baahnaa caawinaad isla markaana ahaa baylah. Ninkan ayaa u habarbaxay libaaxa isla markaana siiyay daryeelkii uu u baahnaa libaaxan ilaa uu ka noqonayay libaax buuxo oo naftiisa ku filan. Balse muddo kadib ayuu go'aansaday ninkani inuu dib u booqdo libaaxii, balse waxaa looga digay khatar kasta oo uu kala kulmi karo libaaxa, sababtoo ah libaaxu waa xayawaan dugaag ah oo hilib ku nool ah, kaasoo laga filan karo wax kasta oo khatar ah. Balse ninkan ayaa ku adkaystay libaaxa inuu yahay mid uu ku kalsooni qabo isla markaana aanu wax dhibaato ah kala kulmayn. Dabcan markuu u tagay libaaxii ayaa xasuustay saaxiibkii wax dhib ahna uma geysan. Sheekadan ayaa xigmadeedu tahay libaax inuu yahay dugaag wax kasta laga filan karo, balse ogow xayawaanaadka qaar ayaa ah kuwo aan iloobin abaalka loo galo.